markii hoolka cashada ay soo galeen oo kuraastii ay ku fariisteen ayaa albaabadii intii loo xiray baa kulligood madaxa laga wada gura markaasuu meydkoodii waxaa la yidhi intuu dhulka safay oo sijaayad saa ugu dul fidsaday oo kursi dul saartay ayuu cuntadiisii halkaa ku dul cunay taariikhdu markii ay ahayd 100kii hijriyada ayaa si qarsoodi ah waxaa u bilowday ololihii loogu ololeynayay in lagu aasaaso dowladdii cabbaasiyiinta ahayd nin la yidhaahdo ibraahim ibnu maxamed ibnu cali oo ku magac dheeraa ibraahim al-imaam ayaa wuxuu bilaabay si qarsoodi ah inuu ugu ololeeyo in khilaafada dib loogu celiyo dadkii xaqa u lahaa oo ahaa ahlulbeytka ibraahim ibnu maxamed wuxuu taageero ka helay nin la oran jiray abu muslim al-khuraasaani abu muslim al-khuraasaani ayaa wuxuu aad ugu faafiyey dacwadaas dhulkii la isku oran jiray khuraasaan waa meesha hadda ah iiraan turkmenistaan afghanistaan iyo baakistaan waxaa saldhig looga dhigay khuraasaan halkaas ayayna waxay ka heleen shacbiyad iyo taageero aad u weyn waxyaabaha keenay in cabbaasiyiinta la taageero waxaa ka mid ahayd in dowladdii umawiyiintu ay u aqoonsanaayeen dadka carabta aan ahayn ama farisiinta ah ama dadka kaloo afrikaanka ah oo cajamka ah inay yihiin dad second class citizen ah oo ka hooseeya carabta cunsuriyaddaas lagula dhaqmi jiray dadkii aan carabta ahayn ayaa keentay in la taageero oo shacbiyad buuxda ay hesho dacwaddii iyo kacdoonkii cabbaasiyiintu 31 sano markii ay socotay dacwaddii cabbaasiyiintu si qarsoodi ah ayay markii dambe soo ifbaxeen iyagoo kacdoon ka sameeyey meelo ka mid ah khuraasaan iyo ciraaq dowladdii umawiyiinta ayayna la dagaalameen dhul badan ayayna kala wareegeen dhulkii ugu horreeyey oo ay kala wareegeen waxaa ka mid ahayd meeshii lagu magacaabi jiray khuraasaan oo taageeradoodu aad ay ugu badnayd taariikhdu markii ay ahayd 132 hijriyo ayaa waxaa la dilay ibraahim al-imaam waxaa kala wareegay hoggaanka kacdoonkii cabbaasiyiinta walaalkiis cabdulaahi ibnu maxamed oo ku magac dheeraa as-safaax ama dhiigyacabkii sanaddu markii ay ahayd 132 hijriyo ayaa cabdulaahi ibnu maxamed as-safaax wuxuu la wareegay magaalada kuufa halkaas ayuuna wuxuu ka iclaamiyey bilowgii dowladdii cabbaasiyiinta khaliifadii umawiyiinta ugu dambeeyey oo magaciisa la oran jiray marwaan ibnu maxamed ayaa ciidan weyn oo uu hogaaminayo wuxuu kala soo dhaqaaqay dhinacaas iyo shaam ciidanka tiradiisu waxay ahayd 120,000 oo askari cabdulaahi ibnu maxamed ayaa isaguna kuufa wuxuu kala baxay ciidan tiradiisu ay gaarayso 20,000 oo askari labadii ciidankii cabbaasiyiinta iyo kii umawiyiinta ayaa waxay ku kulmeen meel u dhaxaysa irbiil iyo muusil webi la yidhaahdo azaab dagaal socday muddo 9 maalmood ah oo markii dambena lagu jebiyey ciidankii umawiyiinta marwaan ibnu maxamedna wuxuu u cararay dhinacaas iyo masar ilaa markii dambe looga daba tegay masar oo isagiina halkaa lagu dilay oo dowladdii umawiyiintuna ugu dambayn halkaas ay ku burburtay cabdulaahi ibnu maxamed khaliifadii ugu horreeyey ee dowladdii cabbaasiyiintu wuxuu caasimad ka dhigtay magaalada kuufa wuxuu bilaabay qorshe uu ku laynayo oo uu ku dabargoynayo qof walba oo ku abtirsada bani umaya si mar dambe aysan kacdoon u soo samayn oo xilka mar dambe aysan u sheegan wuxuu laayay reer bani umaya ciyaalkoodii iyo odayaashoodii wax uu kala reebay ma aysan jirin waxyaabihii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa ayaa la yidhi in uu magaalada kuufa ku qabtay casho aad u weyn oo uu ku casumay dadkii hoggaamiyeyaasha ahaa ee reer bani umaye ahaa ee dhuumalaysanayey wuxuuna ku yidhi waan idin cafiyey ee cashadaas ka soo qayb gala calayr cashadaa waxaa ka soo qayb galay 100 hoggaamiye oo reer bani umaye ah markii hoolka cashada ay soo galeen oo kuraastii ay ku fariisteen ayaa albaabadii intii loo xiray baa kulligood madaxa laga wada gura markaasuu meydkoodii waxaa la yidhi intuu dhulka safay oo sijaayad saa ugu dul fidsaday oo kursi dul saartay ayuu cuntadiisii halkaa ku dul cunay reer bani umaya waxaa ka badbaaday nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu mucaawiya ibnu hishaam ibnu cabdilmelik ibnu marwaan oo u cararay dhinacaas iyo andalus oo markii dambena halkaa ka bilaabay boqortooyo gaar ah oo la oran jiray boqortooyadii reer bani umaya ee andalus cabdulaahi ibnu maxamed wuxuu khilaafada cabbaasiyiinta hayay 4 sano oo keliya 4 sanana wuxuu ku dhammaystay si uu u adkayn lahaa amniga ugana takhallusi lahaa cid walba oo taageersan reer bani umaya markii iyagii uu laayay oo uu dabargooyey